wararka dunida warbixinaha dhinaca dunida deegaanka caalamka dhan waa 10kii bishii afraad 2022 aan ku bilaabo doonta qiimaha isla markaan ugu horeysay wararka tirbeelka qaybta saddexaad horfadhi media ku soo dhawaada dabashana qiimaha iyadoo oo ay muuqato in wali ay dawladda dalka Russia aysan ka tanaasulin inay soo afgoyso dagaalka Ukraine ayaa wararka waxay sheegayaan in la bedelay taliyihii abaanduulka u ahaa ciidanka duqeymaha iyo weerarka ku haya dalka Ukraine kadib markii istiraatiijiyad lagu eedeeyay inuu qaar ka xumeeyay mas'uuliyiinka midowga reer galbeedka ayaa waxa ay soo xigteen warkaasi hase yeeshee dawladda dalka Russia war qoraal oo rasmi ah kama soo saaray sidoo warkaasi war reer galbeed weey inaad soo fahantaa marrada oo qiimaha badan sidoo taliyaha ayaa la sheegay in jarnaal cusub lagu bedelay janankii hore janankan cusub ayaa lagu sheegay warbaahinta reer galbeedka ay tabinayso jarnaal Alexander Fonikov kaasoo noqon doona ayaa taliyaha ciidanka hoggaanka u haya iyo subtida howlgalka iyo duulaanka Ukraine waxaa la sheegay in janankani hore loogu yaqaanay in uu ku dagaalamo magaalooyinka iyo sidoo kale in uu fuliyay dagaalkii uu dawladda dalka Russia ay ku gashay dalka Suuriya isla markaana uu magaalooyin badan uu mucaarad si adag u dagaalamay uga saaray uga hufay wuxuuna ahaa taliyaha aaga koonfureed ee Ruushka ama ciidamada qaybta koonfureed loo qaybiyay waxaana la aaminsan yahay in ninkan uu noqon doono ayaa la yiri mid la doonayo in wax ka bedelo dagaalka 45 maalmood soconaya ee reer galbeedku ay wali ay ku eedeynayaan in uu yahay ayaa la yiri mid aan raaf aysan rogin ciidamada dalkaasi ninkan ayaa loo maleynayaa inuu yahay mid kamid ah ruqcadayaasha military isagoo darajooyin kala duwan ka qabtay ciidamada xoogga ee dalkaasi Russia waxaa la sheegay inuu dhowr jeer hogaamiyay qaybo kala duwan oo ay kamid tahay qaybaha lixaad iyo kuwa lugta iyo kuwa tobnaad ee ciidamada gaar ahaan kuwa taangiyada iyadoo sidoo kale la sheegay inuu ciidamo kale uu mar hogaamiye u noqday ninkan ayaa waxaa la sheegay in sanadkii 2012 la siiyay darajada sareeyad guuto taasoo ka dhigan inuu kamid yahay ciidamada ugu awoodda badan taliyaasha ugu awoodda badan ciidamada dalkaasi sanadkii 2015 ayaa kamid noqday ciidamadii hogaankii ciidamadii dalka Russia uu u diray gudaha dalka Suuriya dhowr jeer ayaana bilada la siiyay oo ku jirto bilada ugu sareysa ee dalka Russia geesinimada arrintan ayaa imaanaysa iyadoo qaar kamid ah taliyaashii muhiimka ahaa ay ragga ugu geysana oo kamid ah jarnaal Oleg Matiev lagu diray dagaalka markaana lagu diray magaalada koonfurta ku taala dalkaasi Mariupol halkaas oo la sheegay in ay dagaalyahano si weyn u dagaalamaya ay markaasi ay jilibka u aasteen oo ay diideen in ay markaa uu fardaqaajiyo ciidamada dalka Ukraine ayaa dhan kale waxay sheegayaan in ay dileen ilaa iyo 19,000 oo askari oo dalkaasi ka socda inkastoo aysan Ukraine marnaba cadeyn soo bandhigin haddana waxay sheegtay in ciidamada ilaa iyo hadda Ruushka kaga dhintay dagaalka ay yihiin 19,000 oo askari kuwaas oo dhigta dhiiga ay u dareen waxayna ku tilmaameen inay sii wadi doonaan inay ciidamada dalkaasi ay xanuujiyaan oo ay si weyn ay u laayaan dhanka kale dawladda dalkaasi Liibiya qaybteeda soo saarista dhibaatooyinkii ciidamada Haftar ay geysteen iyo duulimaadkii maleeshiyaadkiisa ay geysteen ayaa waxaa la sheegay inay mar kale heleen ayaa la yiri 11 qof oo meel ku wada aasan taasoo la sheegay inay tahay wax loogu yeeray markaasi dambiyadii dagaal ee ugu dambeeyay kooxdaas ay gasho waaxda loo yaqaan waaxda helista iyo soo saarista dadka maqan ama helista haybsoocidda dadka maqan ayaa waxay ku dhawaaqday in ay mar kale muujinayso in dagaal ka dhacay magaalada Sirta iyo agagaarka magaalada Al-Bahriya degmada la yiraahdo ay dhamaantood muujinayaan dagaal aad xun oo halkaas ka dhacay inay ahaayeen kuwa dad lagu laayay kooxda Haftar iyo kooxo kale oo iyaguna maleeshiyada ayaa suuragal tahay inay ka dameeyeen arrimahaasi sida ay wararku sheegayaan Amnesty International waxa iyaduna ugu baaqday dawladda dalka Tunisia inay sii deyso dhammaan xildhibaanada ururka An-Nahdha ee Ikhwan Muslimiinka ka tirsan isla markaana ay dimuqraadiyadda dalkaasi ku soo dabaasho Amnesty International waxay sheegtay in ay muhiim tahay in la sii daayo xildhibaanadii ugu dambeeyay ee maxkamadda military la taagay oo ka mid yahay xildhibaan Abdul Latif Al-Alawi kaasoo la sheegay in 3 bilood dhawaan lagu xukumay waxaana sidoo kale sheegtay in qabashada ilaa iyo 20 xildhibaan oo kale ay tahay dambiye aad u waaweyn la geysanayo Amnesty International waxay ku baaqday inaysan in dawladaha adduunka ay cilaaqaad la sameeyaan iyada oo dawladda dalka Ukraine dawladda dalkaasi ay sii sameynayaan dhaho Tunisia inay dhibaatooyin aad u xoogan ay sii geysato ama ay sii sameyso hagaag Iran wali waxay ka suuli leedahay inay cunaqabatayn dhinaceeda iyo sidoo kale liis argagixisa iyo kuwa kale ay geliso waxay ugu yeedhay saraakiisha Mareykanka ay bacsanayso Iran waxay wali doonaysaa hab ay sheegtay inay ugu aarto jirankoodii ay liqi weyday geeridiisa ee 2 sano ka hor Mareykanku qaarajiyay General Qasim Soleimani Iran waxay sheegtay in 24 xubnood oo saraakiil sarsare oo Mareykan ay gelisay liiska waxay ugu yeedhay kuwa
balaayeeyey ee meelka dhaca ku sameeyey xuquuqda insaanka iyo sidoo kale ficilada argagixisanimada ah oo ay sheegtay in dadka reer Iran ay xuquuqdoodii ku tunteen waxaana wasaaradda arrimaha dibadda dalka Iran intaas ku dartay in xubnahan ay yihiin kuwo ficilo argagixisa ah subiyay waxaa kamid ah xubnahan George W. Casey oo ahaa markaasi taliyihii xoogga ciidamada kala duwan ee dalka Mareykanka wuxuuna maraha taliyihii ciidamada markaasi isku dunka ee howlgalkii Ciraaq ka soconayay sidoo kale waxaa kamid ah Joseph Patel oo asaguna ahaa taliyihii ciidanka Mareykanka ee saldhigga dhexe ee loo yaqaano markaasi saldhiggan Qodox ku yaala iyo sidoo kale xubno kale oo kamid yahay ninkii qareenka u ahaa Mr. Donald Trump ee loo jeeday Rudy Giuliani iyo xubno kale oo Mareykan iyo diblomaasiyiin ah waxayna ku tilmaameen in xubnahaasi ay dhamaantood ay la tigsan doonaan maxkamad waxaa kamid ah diblomaasi isaguna u dhalasho ka haysta dalalka Mareykanka Falastiin iyo waliba Lebanon oo lagu tilmaamay inuu kamid yahay dadka iyaguna la caawiyo Mareykanka ee ku caawiyay inay dhibaataynta iyo duraynta dadka reer Iran ayaa dhowr jeer waxay sheegtay in ay cunaqabatayn iyo waliba ay ka argoosi saari doonto saraakiil badan oo ku jiro xataa madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump iyo ninkii asaguna ahaa xogayaha arrimaha dibadda Mike Pompeo labadaas oo ay mar sheegtay xitaa in ay ka argooso doonto taasina waxay dhalisay in madaxweynaha Mareykanku uu ballan qaaday in ammaanka xogiyihii hore arrimaha dibadda aad loo adkeeyo si Iran looga badbaadiyo haday isku daydo inay markaas ka taqalusto isla Mareykanka inteena ka bixin gantaal ayaa lagu dhuftay ciidamo Mareykana sida ay wararku sheegayaan ciidamada dalka Mareykanka ee ku sugan dalka Suuriya ayaa la sheegay in gantaal uu ku soo dhacay taasoo la sheegay in ay ku dhaawacmeen 4 askari oo Mareykana sidii wararku sheegayaan wararku waxay sheegayaan in ciidamada weerarka lagu soo qaaday ay u eegyihiin ciidanka la dagaalanka kooxda ISI ee degmada bariga dalkaasi ku taala taasoo lagu tilmaamay in weerarku uu ahaa mid iska cad sida ay dowladda dalkaasi ku andacoonayso dowladdu waxay sheegtay in weerarkan uu u muuqday inay ka yimaadeen kooxaha taageerada ka hela ama ay taageerto Iran hadir taadlis afayeenka ciidanka qalabka sida dalka Mareykanka ee xaruntooda Pentagon John Kirby ayaa waxa uu sheegay in dowladda dalka Mareykanku aysan hadeerto oran karin waa kooxdaas laakiin wuxuu yiri waxaan u maleynayaa waa kooxda Shiicada ah ee ayadoo taageerta ayuu yiri Iran kuwaas oo ka digay inay Mareykanku kala cadeey doonaan dowladda Mareykanka ayaa dhowr jeer waxay sheegtay inay weeraro kala kulantay kooxo isku xiran oo ay ku jirto kooxda Shiicada ah ee loo yaqaan markaasi dhaqdhaqaaqa Shiicada taageera isla Mareykanka wararkiisa inteena ka bixina gudoomiyaha gobolka Michigan haweeneydii ayada hadda ka hor sheegay inay koox kan intay u shirtay doonaysa inay ka taqalusto qaarijiso ayaa dadkii loo hayay dambiyada ama ku eedeysnaa inay doonayeen inay afduubaan gabadhaasi markii ugu horeysay la bari yeelay oo guddi jury ah ama guddi xirbeegti ah oo loo saaray ay bari yeeleen Adam Fox oo 38 jir iyo Daniel Harris oo 24 jir Braden Caserta oo 33 jir iyo Perry Croft oo 46 jir ayaa waxay wajahayeen wax loogu yeeray markaas shirqool dhinaca duubka ah oo haweeneydaasi ka dhana dimuqraadiga oo iyadu kamid ahayd xubnihii sida weyn uga soo horjeeday madaxweynihii hore ee Mareykanka afka ciida loo daray Donald Trump Gretchen Whitmer ayaa la sheegay in lagu qorsheeyay gobolka Ohio magaalo ku taalo leh Dublin in laguga duulo haweeneydaasi laakiin ugu dambeyntii xubnahan waxaa la sheegay in labana wax dambiga lagu waayay laba kalena qaabka wax looga diyaariyay ee hay'adda FBI ay xogta uga diyaarsay uu yahay wax isku dhaxdaadsan sida daraadeedna xirbeegtigu waxay amartay in la sii daayo 4 qof ba labada qof xataa laftoodana hubin kale hadii lagu sameeyo laakiinse ugu dambeyn la sii daayo si kastaba noqotay hay'adda FBI da ayaa xubno undercover oo ayagu dadan ayaa ka qayb qaatay kulan ay xubnahan isugu yimaadeen kuwaasoo iska dhigay inuu taageersan yahay qorshahooda howlgalka taasoo markii dambana fashil ku soo idlaatay ama ku dameysay sida ay wararku sheegayaan daawashana qiimaha badan ee wararka waxaa dhinaca diblomaasiyadda ee haatanna qodobka ugu dambeeyaan kaga tagayo aan fiiriyo Saudi Arabia waxay ku dhawaaqday in sanadkan xajka hadii ay beedmo waa xajka sanadkan xujayda loo fasixi doono 1 milyan oo xujay ah in la siiyo ayaa leeyahay xujaynimada ama gudashada acmaasha xajka ee sanadkan 2022 waaxda maamulka ama wasaaradda xajka iyo cimrada ee dalkaasi ayaa waxay ku dhawaaqday in iyada oo la isku diyaarinayo dib u furis buuxda haddana in kaliya la ogolaanayo 1 milyan oo qof oo xujaaj ah inay ka soo qayb galaan gudashada acmaasha waajibaadka ee tiirarka islaamka
kamid sanadkan 2022 sidaas ay wasaaraddu ay shaacisay wasaaradda ayaa sheegtay in ay tan imaanayso iyadoo xanuunka faafaha daran awgii 2 sanadood uu xajka uu galay markaasi khalkhal iyadoo sanadkii 2020 aan cid tagin halka 2021 dad yar oo kooban kaliya loo ogolaaday balse waxay sheegeen in 1 milyan ee dadka ay ku jiri doonaan dadka gudaha boqortooyada ka soo xajiyi doona si kastaba ha noqotee xajkii ugu weynaa ee taariikhda casriga la tiriyay la ogaa ayaa waxa uu dhacay sanadkii 2019 oo ahaa sanadkii ugu dadka badnaa inta taariikhda la xasuun yahay oo ka qayb galeen 2.5 milyan oo qof oo ka qayb qaatay aabahay Allah naxariista kamid ahaa sidaa daraadeed ayaa waxa markaasi ay sheegtay dawladdu in ay kaasi u ahaa xajkii ugu ballaadhnaa isla markaana ugu dameeyay mid aad iyo aad dadku u badan yihiin balse waxay sheegeen inay noqon karto in la sii badiyo sanadaha soo socda hadii beedmo si buuxdan loo wada furo ayaa la yiri xajka iyo irdaha loo wada furo qaybta afraad